السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأني قايد الله كسر هذا channel كان أحمد الدارقطني. فضلا لايك قريب فيديو كان سبسكرايب ندي channel كاديات وحسب تاعي. kusoo dhawaada barnaamijkii taxanaha ahaa ee Ramadaan iyo aqoon kororsi qaybtiisii saddexaad uguna dambeysay Ramadaanka. barnaamijkan oo ah barnaamijkii socon doona Ramadaanada soo socda ayaan Ramadaanka iska weydiinay su'aalo ku saabsan taariikhda Islaamka. haddaba aynu bilaabano barnaamijkeennii aan ugu talagalnay maanta. su-aasha koowaad, kumuu ahaa safiirkii ugu horreeyay ee Islaamka? jawaabta koowaad, Bilaal ibn Rabaah. jawaabta labaad, Cumar ibn al-Khattab. jawaabta saddexaad, Muscab ibn Umayr. jawaabta afraad, Sacd ibn Abi Waqaas. waxaa haysataa 10 sekund. jawaabtu waa Muscab ibn Umayr. su-aasha labaad, kumuu ahaa saxaabigii ay malaa'igtu salaami jirtay? jawaabta koowaad, Muscab ibn Umayr. jawaabta labaad, Khalid ibn al-Walid. jawaabta saddexaad, Zubayr ibn Cawaam. jawaabta afraad, Cimraan ibn Xuseyn. jawaabtu waa Cimraan ibn Xuseyn. su-aasha saddexaad, meeqa sano ayuu Cumar ibn al-Khattab khaliifada hayay? meeqa sano ayuu Cumar ibn al-Khattab khaliifada hayay? jawaabta koowaad, 12 sano. jawaabta labaad, 6 sano. jawaabta saddexaad, 10 sano. jawaabta afraad, 2 sano. jawaabtu waa 10 sano. su-aasha afraad, meeqa dagaal ayuu galay nabiga sallallahu calayhi wasallam? jawaabta koowaad, 30 dagaal. jawaabta labaad, 27 dagaal. jawaabta saddexaad, 14 dagaal. jawaabta afraad, 28 dagaal. jawaabtu waa 27 dagaal. su-aasha shanaad, sheeg caasimadii dowladdii Umayyadeed. sheeg caasimadii dowladdii Umayyadeed. jawaabta koowaad, Dimashq ama Damascus. jawaabta labaad, Baghdad. jawaabta saddexaad, Istanbul. jawaabta afraad, Makka. jawaabtu waa Dimashq. intan ayay nagu yihiin su-aalaheennii aqoon kororsiga ahaa ee ka hadlayay taariikhda Islaamka. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iiday fiidiyowga. fadlan like dheh, subscribe dheh channelka haddaad ku cusub tahay, asxaabtaadana la wadaag fiidiyowgan adoo taabanaya batoonka share.